falanqayntayna tartankii dugsiyada ururka gobolka banaadir ee ay taabagelineysay jaamacadda Ballasma loo soo gabagabeeyey oo goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka isla markaas ku simaha xiriirka Soomaaliyeed kubadda cagta mudane Cabdirashiid Cabdulle George iyo macalimo Yaxya Aawo oo guddiga fulinta madaxa tartamada madaxa qaranka xulka qaranka dalkeena Soomaaliya Yaxya Maxamed Abuukar waxaan ognahay tartanka dugsiyada gobolka ururka gobolka banaadir oo ay taabagelineysay jaamacadda Ballasma oo ay ka qayb galeen ilaa iyo 31 dugsi dambeystii aad waxay isku soo haray dugsiga Imaamu Sarqaawi iyo Nageeye 3 gool iyo 1 gool waxa ku adkaatay dugsiga Imaamu Sarqaawi labada kooxood xaqiiqatan waxay soo bandhigeen ciyaartooy dhalinyaro ah talent leh ciyaar aad u fiican kulli waa la dareemi karaa laba koox final imaaday waa la ogyahay waa la fahmi karaa 32 koox ama 31 koox in laba koox final ay ka imaadaan isla markaas tartamada micnaha gurubyada loo qeybiyay xaaladaha ay soo mareen labada koox aan bali aan leenahay kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad shaqo fiican soo qabateen macallimiinta dhalinyarada ah ma sha Allah macallin mar walba waa qofka u taagan waa mar walba qofka ku bixinayo waqtigiisa qaaliga ah waa mar walba qofka dhibkas ay soo gaarayaan dhinac ciyaartooy ha noqoto dhinac maamul ha noqdaan dhinac kasta maxaa yeelay dhinac ciyaartooy waxaan u leeyahay maxaan ognahay macallinka dhowr ciyaartooy inuu wacanayo uu tababar ku bilaabayo tusaale ahaan iskuullada tartamo in galaasyada in loo qabanayo laga soo xulayo inta la soo xulay haddana tababar uu ku bilaabayo intii tababarka uu ku bilaabo haddana uu kusii xulinayo la diiwaangelinayo inta la diiwaangeliyey maalinta ciyaarta 18 ciyaartooy inuu kusoo xulinayo 18 kaas ciyaartooy 11 inay ka ciyaarayaan 11 waxaa laga yaabaa 3 bedel 4 bedel in laga sameeyo marka dhinacaasna culaysa kaga imaanayo macnaha aan waa fadhiya ani waa lee fadhiis aan tarbuna lee saare laakiin waxaas macallimiinta ma sha Allah mar walba waxa anfacayo ciyaaryahanka wax qabadka leh aadaabta leh horu socodka leh la dareemi karo inuu yahay qof hore u soconayo ma sha Allah laakiin dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhalinyaro aad u jecel ay ka go'an tahay aad arkayso sida ay kaga go'an tahay ihtimaamka ay u siinayaan kubadda cagta iyo tartamada qaaska soo marka tartankan oo finalka soo gaaray runtii waxa taabagelineysay macnaha sabab gelineysay jaamacadda Ballasma iyo dhammaan maamulkooda oo runtii aad iyo aad ugu istaagay tartan wacan oo aad iyo aad u qurux badan tartankan waxa aad iyo aad dhabarka ugu xirtay si kastoo naqatee u dadaalay u ordo meel walbo ninka dadaalka badan aad iyo aad waqtigiisa qaaliga ah ku bixiyo horumarinta kubadda cagta iskuullada isla markaasna ah agaasimaha isku dabaridka qabanqaabiyaha mu'allifka Mr. Maxamed Ciise Maxamed oo loo yaqaan Mr. Didi nin dhalinyaro ah dadaal badan oo aad arkayso inuu horkar yahay oo dhinac walba ugu diyaarsan yahay dhinac walbana energy u haayo oo dhinac walba aad ka arkayso sida waqtiga qaaliga uu ugu bixinayo shalay kaliya garoonka gudihiisa inta shaqo uu isku qabanayo kan image ma qiyaas karnaa ma sha Allah marka waxaan leenahay cilmi dheer iyo caafimaad iyo cibaado suuban hore u socon leenahay dadaalkaada waa mid muuqda horumarinta dhalinyarada maxaa yeelay dhalinyarada Soomaaliyeed runtii xaqiiqatan xajiran baahiyaal kala duwan xajiran xaalado kala duwan laakiin haddana waxaad dareemaysaa aad arkaysaa dhalinyarada inay aad iyo aad ihtimaam u siinayaan inay aad iyo aad u jecel yihiin mar walba iyo waqti walba jaanisadooda inay siiyaan hadday naqan lahaayeen ciyaartooy hadday naqan lahaayeen macallimiin hadday naqan lahaayeen maamulada kala duwan dhammaan waxaasoo dhan alla subxaanahu wa tacaala ayaa mahadoo dhan iskale alxamdulilah oo wax walbana awooddiisa naxariistiisa ay ka weyn tahay kana waasacsan tahay
maanta dhalinyarada xaaladaha ay marayaan runtii dhinaca aqoonta markaa fiiriso, dhinaca horumarka markaa fiiriso, dhinaca dadaalka markaa fiiriso, dhinaca kubadda cagta skiilkooda markaa fiiriso, runtii qof walbo ama rag ha noqdaan ama dumar ha noqdaano taalintiyada ay leeyihiin waxyaalaha runtii ay yaqaanaan ama waxyaalaha ay barteen inay kusoo bandhigaan social mediaha boqolkiiba 70 boqolkiiba 80 maasha allah dad taalanti leh oo taalantigooda dad walbo dhinaca walbo maasha allah soo marka magac waa yeelanay haddaaba nooshahay laakiin maxaa jeceshahay ina magaca ku yeelato seed rabtaa magac inaa ku yeelato kulli xaal ninkan dhalinyarada ah maxamed ciise maxamed master d runtii kutayashuu mudan yahay laakiin waxqabadkiisa maasha allah maasha allah nin dadaal badan wax badan maaragtay isku hayo marka waxaan leenahay dhammaan hore u socdaan leenahay labada kooxood finaalka imaadsan sheegnay labada kooxood finaalka imaaday imaamul sarqaabi iyo nagey ciyaar aad u xiiso badan 3 gool iyo 1 gool 3 gool iyo 1 gool waxaa la baxshay abaalmarino kala duwan waxaa joogay madaxweyne ku-xigeenka labaad isla markaasna kusimaha madaxweynaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ahaa maxaa yeelay madaxweyne cali cabdi maxamed cali shiin wuxuu ku maqan yahay safar shaqo soo marka hawsha waxaa wadaayo ku-xigeenka koowaad asina shaqo ku maqan yahay safar shaqo ku maqan yahay ku-xigeenka labaadaa joogay mudane cabdirashiid axmed cabdirashiid georgianin oo maaragtay kaftan badan baashaal badan runtii aad iyo aad abaalmarinada la bixinayay ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa goolashii tobiskoraha ahaa goolhayihii ugu fiicnaa waxaa la bixinayay macalinka ugu fiicnaa waxaa la siinaya shahaadooyinka dugsiyadii aadaabtooda nidaamkooda waqtiga ilaali si fiican oo la shaqeeyey maxaa yeele abaalmarinka la bixinaya carruurtooda Soomaaliyeed waxaan ognahay dadaalada dadka ay qabtaan maasha allah waxaad arkaysaa marka dadaalada ay sameeyeen oo runtii oo aad iyo aad u taabgelinaysay jaamacadda Balasma iyo maamulkeeda ay joogeen ay bixinayeen waxaa kaloo joogay madaxa xulka qaranka dalkeena Soomaaliya isla markaasna guddiga fulinta macallimu Yaxye Maxamed Abuukar Yaxye Awo oo nin legend rubcadaa ah oo isla markaas guddoomiyaha tartamada ah ee xiriirka Soomaaliya kubadda cagta kaalin weyn laga qaatay sportiga dalka Soomaaliya maasha allah dhammaan waxaan leenahay horumar wacan ciyaartooyda dhammaan kooxaha ka qayb galay talantigooda sharaf iyo karaamo runtii ciyaartooy badan oo aad iyo aad talantigooda u fiican oo aan rajayn doono mustaqbalka dhow ama midka dheer kooxaha dalkeena Soomaaliya saasoo kale ciyaaraha degmooyinka aad u soo horeeyo inay jaanisi u heli doonaan iyo xulka 15 jirada iyo 17 jirada maasha allah sharaf iyo karaamo horumar waxaan idin leeyahay salaamu alayhi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu warajayna inaa meel dheer gaarsiisaan warajayna haddii beeshka ku xiran tahay sharaf iyo karaamo haddaad ku xirneen sharaf iyo karaamo salaamu alayhi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu